أنا أقول الله مجا تذكر الشيء ولا قتير بدي يعني كل مجا اسمه جالي هو يسومالي هذا أنا هاي ولا لا تسومالي دين سومالي هو ضطة ولا قتير بدي هي والله يسايو كلمة اسمه جالي ما لها لو سوق قرية دتك سوق قرية هنا وحندي لها هلا قد أيو دتك أقبل يانا وأنا قاعد هاي دتك عن كذا شيء إلا جوجيو اللي هي بسوعي دتك اللي قتير بدي هي تي في ميل والباب لو استعماله ويقطعوا قف لقى ترى بديه ما لقف نترينا بجرته اللي هي بسوعي ترى لقى ترى يدي هي كلمة اسم استعمال من الجعلي نعم ما دبان أنا هاي ما دبان كل شيء ما دبان بعمل حي ما دبان بعمل وما ملاينا هوي أبي إيجا قيمة بدني نشرا marka fadlan wax isqariye iyo wax dhunta ma jirto banaankan laala wadankan 30 sano deganahay ina hooyo ma dhibaanahay la yaqaan xaafad ringa biibaan deganahay walaalkay caatan isku xaafad ku soo kornay boondheer laamiga noo dhaxaysay Soomaali North ila South aan ka deganahay umaleyn maayo gobol aan ka maqanahay cidna tarkoobtayna ma jirto annaga aqbalnayna waa qaldanahay oo inaan joojinaa dadka ku dhawaaqaya ama wariyaasha wadana waxaan dhihi lahaa kelmad kale ha lagu bedelo dad Soomaali jinsigooda ah in laga saaro Soomaalinimadii qolo kale laga dhigo wax laga fiican yahay dad Islaam baan nahay islaamnimo ku aftirsado Soomaali ah ma u maleynaa inaan ka baxsanahay Soomaali ma u maleynaa inaan islaamnimo ka baxsanahay gabdhaha meesha fadhiyo wiilasha meesha fadhiyo kulli 9 bilood baa lagu wada dhashay nin hooyo gooniya 2 bilood ku dhashay ama 3 bilood ku dhashay ma jirto qof walba 9 bilood buu ku dhashay marka kelmadaha la isticmaalayo annagana aan joojino aqbalayno inta ku dhawaaqaysana inay bedelaan magac kale oo wanaagsan ee lagu bedelo ayaan rajaynayaa dadku waa sii fogaanaya maalinba magac markii la sameeyo waxaan aaminsanahay nin iyo cunsuriyeey inay jirin Soomaaliyan ku dhashay ardayda kacanka wax ku soo barataanahay dawladda Soomaaliya nabadda ahayd noloshayda ma arag meel leeyahay cunsuriyeeyo ma arag meel leeyahay faquuqo kelmadahan iyo magacyadan yaacay ma aqaan meel ay ka yimaadeen muqdisho aan ku dhashay muqdisho aan ku soo koray xaafadda boondheer aan ku dhashay iskoolka Yaasiin Cismaan dhiganay 8kgi iskoolka yaa maxaa shaxasaf barsame aan dugsigayga sare dhigtay dugsigayga dhexe iskool xawata kan ka soo baxay waligay ma arag qof bini aadan intuu isoo hor istaagay cunsuriyeeyo marka Soomaali ma wada xumo cunsuriyada ma wada jirto shaqsigii qalad ku yimaado waa gooni laakiin Soomaali ma wada xumo shalay banaanka markaan maray qof walba u sheegay magacan ma jecleen aan isticmaalo ilma agoon aan isticmaalayo ilma agoon wax u ururinayna ilma agoon wax u wadnaa marka wax isqariyay wax islaalaabo ma jirto dadka banaanka ay soo dhigaan dadka dhahay hal laga joojiyo waxa cabsida keenaya ama faquuqa keenayo waa dadka iskoolada macallimiinta dugsiyada وحقيقة مركان كهذا لأنه الله قال حلا حنين وإسكال الله وح وجوب بدن ما أحد دنك كوفرته وقوي دنك دبعت هذا أد وقتها جنت حي وحضر ما ليس هذا وح بدن الناس كبد الشيء إن شاء الله أنت لمن ويهجاج دون تا مدن ملايين عين دبعت كجرتو بدوشين ملايين وح فقوق إنه كجرو أنا فكر كيجو أنا كسر كوري واقعا كسر ده كوري درسي ولا الأدي أبتشنس أورنجرني وإحنا فقوق جرم جرتو marka hadda arintan xamaasada laga dhigay qabiilka laga dhigay qabiil mujir eedii hawaryar bay noo wada ahaayeen dariskii cid aan magacooda aan ku magacaabi jirin ma jirto cidna cunsuriyeyn jirtaan cid iskoolada nagu cunsuriyeyn jirtaan ma jirto dhanka waqooyi dadka ka sheegtaan insha Allah iyadana way hagaagi doontaa biidnillaahi kariim wax badanna way iska bedeleen